anaka ilka casi wuxuu noo taagan yahay booska tubaac iyo salaad derbi iyo noo taagan yahay asal rapas markaan nahay fanaaniinta muusiga ka baxsan Somali cultural music la fiiriyo booskaas noo taagan yahay so sometimes qofka booskaas ku taagan yahay oo legend yahay oo yahayna respectigiisa inaad siisa lagaga baahan yahay Sharma Boy ku soo haray Sharma Boy iyo Cheesy Boy iyo Wizzy B iyo Lil Balil iyo asxaabta kale iyo Lionel Messi yaalana iyo Cristiano Ronaldo yaalana sababta maxaa waaye Lil Balil maadaama isbarbardhig uu ku sameeyay Sharma Boy iyo waliba alfanaan Ilka Casaqays inuu legend yahay oo uu ku wanaagsan yahay xagga raabka oo inagoo aad u da'yar aan taleefanada shiineeska ka dhageysanaynay qof walba marqaati ayuu ka yahay 10 sano kahor Ilka Casaqays sidan uu hanjabayay raab uu ka hanjabayay fanaaniintii ugu horeysay midka ugu horeeyay duusan ahaynba ee raab heeso ku qaada ayuu ka mid yahay marka Xasan Aadan Samatar oo maanta dunidana la saaran oo fanaan legend ah oo heerka uu fanka ka taagan yahay ogsoonahay maanta haduu hees uu soo qaado 25 jirka ilaa 15 jirka Soomaaliya jooga ama dunida kale jooga Soomaali ah wax badan kalama socon karo maxaa yeelay Xasan Aadan Samatar in legend uu yahay uu og yahay Xasan Aadan Samatar in fanaan qaali ku ah Soomaalida uu yahay uu og yahay laakiin waqtigii iyo waayihii ayaa isbedelay Lil Balil marka hadalkiisa waan isdul taagayna maxaa ka run noqon kara maxaa ka been noqon kara soo dhawaadaan idin leenahay waa mar kale iyo muuqaal cusub haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay waxaan ka codsanayaa in subscribe aad nagu caawiso si sharaf leh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan dadka noogu xirnaa hadii aad ka mid tahay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay like dhe muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-gana asxaabtaada kula sii wadaag sidaan wada ogsoonahay wadan kasta wuxuu leeyahay heerar fan ah adduunyadana fanku waxa waaye meesha laga qiimeeyo dal kasta fanaaniinta heesaha ay qaadayaan iyo waxa ay ku saleysan yihiin ayaa la qiimeynayaa heesaha fanaanka uu qaadayo hadii ay yihiin kuwa cunsuriyad ay ku dheehan tahay oo dadka dalka marti ku ah lagu aflagaadeeyo hadii dadka la isku dirayo hadii madaxda lagu aflagaadeeyo hadii bulshada lagu kala soocayo oo la leeyahay adaan dheera adaan gaab ah caalamka meeshas ay ka fiiriyaan fanka maanta Soomaali fankeeda dad badan oo taariikh fog ku leh ayaa jira الله ونحرسته محمد سليمان طبيع حليمة خليف عمر مغول يدد كلو فربضان وقاركود اي جيريودين قارنا ينولي هنا وان كسو قادن كرنو حسن آدن سمتر حسن باشي وان اقناهي فانكا ايو هيرك او كد استاغي ايو مانتدان تاريخ دا فوق ايو كولي فانكا الصوماليات او لجنس كمانتا ان كفاني كرني دوني دا سار نو قيب كيها انتا دمت إله ونحرسته فنان ليل Balil wuxuu isbarbardhig ku sameeyay xilligan yaa la dhihi karaa legendka raabka Soomaaliya Ilka Casaqays mise Sharma Boy Sharma Boy iyo Ilka Casaqays waa laba fanaan aan taageero waahay Ilka Casaqays in legend uu yahay oo fanaan dhameystiran uu yahay oo maanta hadii hees uu soo qaado saameynteeda yeelanaysa uu yahay qof walba ka dharagsan cunuga xalay dhashay uu og yahay laakiin Ilka Casaqays aniga markaan dhageysanay ciyaal dugsi maan aha ciyaal iskuul maan aha ma garan karo 10 sano ka hor Ilka Casaqays sidan uu hanjabay Ilka Casaqays waa fanaaniintii ugu horeeyay midka koowaad haduusan ahayn waa labaad oo aan dhihi karo rap ayay bilaabeen in hees ay ku soo qaadaan Ilka Casaqays iyo Dikriyo iyo dhalinyaro fara badan oo waayaha cusub ka mid ahayd oo xilligaas Nairobi joogay ayaa bilaabay in fanka ay ku soo kordhiyaan xagga iyo raabka Soomaalida inta badan kuma haysan jirin waxa jiray fanaaniin kooban oo markaasi iyagu raabka ku haysan jiray laakiin dadka ma wada fahansaneen heesaha qaar ay xamariga raabi ahaayeen oo kale Shimaali Axmed Shimaali oo markaasi heesa raab hore u qaaday laakiin ma badneen dadkana ma fahansaneen Cabdi Maaxi Mooye
oo hadda fanaaniinta UK inay joogaan uu ka mid yahay aan filayo heesa raab uu qaaday laakiin ma shacbaxsaneen jubba jeeradeeda anoo maraayo waa ijoojisay waa un soo jeestay waxyaabo lamid uu ka hadli jiray laakiin waa heeso diiwaan gashan oo YouTube-ka maanta laga heli karo laakiin Ilka Case Qays wuxuu dadka baray ama dhalinyarada uu usoo jeediyey in heesaha raabka ay yihiin kuwa dunida ay hadda la jaan qaadayso fankii caadiga loo qaadi jiray meesha laga saaray dhalinyarada waxay fahmayaan la keenay erayo la isku keenay erayadaas qaar karbaash ay u badan yihiin oo dad fara badan uu kusoo jiitay Ilka Case Qays iyo asxaabtiisii markaas bilaabay raabka Sharma Boy 2016 wixii ka dambeeyay uu soo baxay 17 18 ilaa wixii ka dambeeyay durbadiiba wuxuu noqday fanaan hirgalay oo dad fara badan oo Soomaaliyeed aad u soo jiitay oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed fankiisa ka gaday oo da'yarta ka gaday Lil Balil nafsad ahaantiisa waa fanaan ku heesa afka Swahiliga oo ku heesa Englishka oo ku heesa afka Soomaaliga oo heesiisu qaab caalami ah loo duubo oo ma aha nin hadda la dhahayo legend ma aha waa legend naftirkiisa heesiisa in badan oo kamid ahna waan dhageystay qaar badan oo kamid ah waan daawaday Lil Balil one more night kamid ah heesaha dhawaan u hirgalay laba qarxay dadku fasiraada ay ka bixiyeen ereyada intooda badan wax wanaagsan aysan ahayn laakiin raabka sidiisaba ereyo badan oo karbaasha isaga jira marka wuxuu leeyahay fanaankeenna Lil Balil oo aan aad u taageersanahay meel kastoo la tago legendka maanta raabka cid ka hor istaagi karta ma laha inuu yahay Ilka Case Qays waan kugu raacsanahay Ilka Case Qays waa legend Ilka Case Qays iyo maanta marka la isbarbar dhigo Sharma Boy marka xaqiiqda laga hadlayo fanaaniin badan oo rappers ahna way ka hadleen waa la heli karaa YouTubers ka hadlay Facebookera ka hadlay waa isagoo fanaan raabka ku heeso oo fanaaniinta kale la mid ah oo waxba aan ka doonayn iskoorada uu wato waxa kamid ah xagga social media inta qof ee daawata Sharma Boy ma daawato Ilka Case Qays inta qof ee daawata Sharma Boy ma daawadaan maxaan ku yiraahdaa Wizby Jazzy Boy ninkan marna YouTuberka marna fanaanka CK iyo fanaaniinta la midka ah marka legend waan oran karnaa Sharma Boy maxaa yeelay waqtigiisa ayuu qaadanaya Ilka Case Qays waqtigiisa uu soo qaatay wiilna uu qaadanaya laakiin sidaa oo tahay legendnimadiisa cid ka hor istaagi karta malaha laakiin marka aan anigu shakhsi ahaan la barbar dhigo xilligan la taagan yahay 2022 baan ka soo qabano waxa ka saameyn badan Sharma Boy maanta Ilka Case Qays marka uu hees soo qaado TikTok adiga fiiri markuu Sharma Boy hees soo qaadana TikTok fiiri reaction-ka iyo meesha uu ka imaanay bal qiimay qaabka uu ga hadlay fanaan Lil Balil arintan balayno isdul taagno adigana qaybta commentiga adigoon cidna ku xad gudbin waa uu ku furan yahay in aad fikirkaaga ku reebato anaka Ilka Case wuxuu noo taagan yahay booska tubaac iyo salaad derbi iyo noo taagan yahay as rappers markaan nahay fanaaniinta muusiga ka baxsan Somali cultural music la fiiriyo booskaas noo taagan yahay so sometimes qofka booskaas ku taagan yahay oo legend yahay oo yahayna respectigiisa inaad siisa laga baahan yahay Sharma Boy ku soo haray Sharma Boy iyo Jazzy Boy iyo Wizby iyo Lil Balil iyo asxaabta kale iyo Lionel Messi yaalana iyo Cristiano Ronaldo yaalana sababta maxaa waaye no matter what si kasta u tartantid u qatarsanatid waxa laga yaabaa hadda hees haduu Ilka Case maanta soo saaro iyo hees haduu Sharma Boy soo saaro waxa laga yaabaa lacala hees Sharma Boy inay views badnaato waa laga yaabaa hadahay ma hubo aniga laakiin saasay tahay Ilka Case hadii laga views badan yahay xitaa wiligiis iyo adiis wuxuu noqonaa legend wiligiis adiis wuxuu noqonaa Pele iyo Maradona sababta hadii la dhaho football ya legend Ilka Case Qays ana fanaaniinta aan aad ku taageersano kamid yahay maxaa yeelay waa nin qabyaalada ka fog nin qabyaaladiista ma Sharma Boy sidaas la mid waa nin ciyaal xamar ah marka labadooduba waa laba legend waxa marka aan jeclaan lahaa in Lil Balil fanaankeyga uu dhaho labadoodu waa laba legend ninkana waqti badan uu soo qaatay dad fara badan ku xiran oo fanis uu leeyahay ninkana waqtigiisu qaadanaya
marka iskoorradan uu soo bandhigo hadda 2022 yaa iskoor wanaagsan yaase iskoor wanaagsaneyn fanaaniinta kale Jazzy Boy Wizby CK maxaan ku yiraahdaa inta raabka ku haysta iyaguna King Arash been haddaan la isku sheegaynin fanis ay wada leeyihiin waxa lagu kala adkaaday maanta waa social media oo kaliya fanaan walba raab ayuu soo qaadaa wuu soo heesaa cid been sheegi karta ma laha fanaan kastana wuxuu leeyahay talent gaar ah talentigiisa ayaana bulshada uu ka gadayaa oo ma jirto fanaan qabiilkiisa si gaar ahaaneed ugu xiran intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horeyso channelkan aad soo booqatay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto anaga ilaabin haddii horaan aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay muuqaalka like dheh isla markaana qaybta commentiga fikirkaaga nagu reeb gruubyada WhatsApp iyo Facebook inaad ku sii share garayso asxaabtaada la wadaagtana waan rajeynayaa markasta email kasto aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida aad alaaba noogu xiran tahay mahadsanidin